السلام عليكم أصحاب الضمان meel kastoo aad joogtiinba waan idin salaamay kusoo dhawaada sheekadii murugo qaybta labaad qaybteennii koowaad waxay noo joogtay culusow oo samatar iyo rag kale gaari ku soo qaaday keenayna meel mugdi ah sidoo kalena waxaa loo dhigay salli oo ay ku seexdaan qaybteen labaad waxay ku bilaabanaysaa intii meeshii aan taagnayn waagii ayaa baryay salaadii subax ayaa jamac lagu wada dukaday markii qoraxdii soo baxdayna waxaa afartaynii naloo keenay dhar isku eg oo tuuta ah waa nooca ay ciidamadu xirtaan oo ilaa kubka daboolaya weli kaba aan dacs ahayn lugteeda ma gelin haddana waxaa lay keenay kabo aanan weligay arag oo aanan xidho aqoonin aniga oo la yaaban kabihii iyo dharkii tuutaha ahaa ayaa amar kale nagu soo dhacay waxaana naloo kala qaybiyey unugyo waxaana nagula kala daray raggii meesha joogay goortaan imaanayay goobta waxay ahaaday habeen indhuhu wax fiican ma arkaynin askar waardiye ah mooye dadka kale way hurdeen waxayna ila ekayd meel cidla ah oo aan dad joogin waagu markii uu baryayse xaaladdan arkay waxay noqotay mid taas ka duwan xogta goobta oo dhammaystiran ayaan helay waa xarunta tababarka ee ururkaani leeyahay waa deegaan dhul kayn ah ku dhex yaalla waa koonfurta fog ee gobolka shabeellaha hoose xarun tababarka sukow goobtu waa saldhig laga abaabulo duulaanka iyo dagaalada urur ku qaado meelo kale oo waddanka ah sidoo kale waxaa ku yaalla qaybo sidii cisbitaal u shaqeeya oo kuwa soo dhaawacma wixii adeeg caafimaad oo la heli kara loogu fidiyo halka meel aan naga fogeyn ay tahay qabuuro wixii soo dhinta ee la awoodo in la soo qaado lagu aaso waa meel mashquul badan oo howlo kala duwan ay ka socdaan dhallinyaro tababaro ciidan qaadanaysa ayaa u tuban koox meelo kala duwan waxaa jooga ciidan xerada waardiyeynaya iyo macallimiinta tababarada bixinaysa oo ajaanib iyo Soomaali isugu jirta rag kale oo iyagana dhar ciidan xiran oo waxay qabanayaan aanan garan karin ayaa marba qol meel gaar ah ku yaala gelaya oo haddana ka soo baxaya waxaa meelo kala duwan ka soo baxay haween bilaabay wax karin haweenku maalintii oo dhan waxay ku jiraan shaqo adag xaabo ayay jijibinayaan cunno ayay karinayaan fuustooyin la jaray ayay qoryo dhaadheer ku walaaqayaan cunno galey shiidan ama bariis ah midkood si ay ciidamada tirada badan ay ugu diyaariyaan quud iyo dhardhaqid ay dharku dhaqayaan saraakiisha iyo macallimiinta waa gabdho qurux u dhashay balse duruufta meesha ku haysaa ayaa arag xumaysay oo ilqabatin la'aan ka dhigtay balse iyagu way ku faraxsan yihiin shaqada ay hayaan ee aan cidna lacagta ku siinaynin waxay ku jiraan jihaad nafhurnimo ah oo aysan shaqada culayskeeda u kala socnayn qaarkood indhahooda markaad fiiriso ayaad ka garanaysaa culayska iyo hubinti la'aanta haysata iyo inay qabaan welwel ku raagay oo gunta hoose ee dareenkooda ka soo burqanaya mase leh irid uu ka baxo oo meeshaas ayay ku afxirtay maalmihii hore waxaa aad ii dhibay qaabka ay haweenkaani meesha ku joogaan iyadoo loo sheegay inay yihiin badidooda xaasas oo habeenkii ay yihiin marwooyin raggooda la jooga waxaan isweydiiyey tolow nolosha sidaan ah dunida ma ka jirtaa mise xeryaha ciidamada lagu tababaro ayaa sidaan ah oo maxaa keenay haween meesha ciidanka waxay ahaayeen su'aalo aan isweydiiyey jawaabse waan u waayey maxamed xasan maxamed cirro oo sheekadan murugo inooga sheekeynaya wuxuu leeyahay barqadii ayaa meel xafiis oo kale ah qof na loogu xareeyey iyadoo waraysi nagala qaadayo su'aalaha lay weydiiyey waxay ahaayeen qaybta aan doonayo inaan ku biiro layma weydiin waxa aan meesha ka soo doonay iyo sidii aan ku imid haddii aan imid waxa aan ku qasbanahay wixii aan socdo inaan dhinac ka galo ayay ogaayeen sidaan isleeyahay markaas macno ma laha in aniga dareenkayga lay weydiiyo wax qiimaana uma lahan waxuu ninkii i weeraysanayay oo ay u eg tahay nin ay ka maqan tahay xasiloonida i kala dooransiiyey in aan ku biiro kooxda suumanka oo ah kuwa naftooda biimeeya oo isqarxiya iyo kuwa dagaalama waa wax wanaagsan haddii lay kala dooransiin lahaa labadubase waa geeri sugayaal waxay ku kala duwan yihiin inaad mid og tahay markaad dhimanayso midna aad wakhtigaagii dhimashada u daynayso malkamowdka oo aadan ogayn goorta uu ku imaanayo waxaan doortay kuwa weerarada ka qayb qaata saaxiibadii ila socdayna sidaasoo kale ayay yeeleen waxaan sa arkay dhallinyaro dooratay inay isqarxiyaan oo aad ugu faraxsan shaqadaas ma garanayo waxa ay sidaas ugu faraxsanaayeen iyaga oo og inuu hilibkoodu uu gogo'ayo oo uu cadcad noqonayo waxayse leeyihiin tixgelin badan oo si wanaagsan ayaa inta yar oo noloshooda ka dhiman loo xanaaneeyaa waxay helaan hurdo iyo cunno fiican waxaa loo aroosiyaa haween oo maalmo ayay xiraysanaadaan inta aysan gabadhaas ay ka dhimanayaan aysan ismacsalaamayn gabdhaha ay ka dhintaan mid kale oo isagana qarax qaada ah ayaa loo xaraynayaa weligoodba gabdhahaasi waa dariiq loo sii maro geerida sheekada aan meesha ugu tegay marna xiiso ayay ii yeelatay marna layaab xerada meelgeeskeeda ah oo ka durugsan goobaha aan wax ku cuno kuna faylo waxaa ku yaala geed qurac ah
oo si wanaagsan u baxay. Maalmihii hore muuqaalkiisa ayaan arkayay, haddase waxaan ka mid noqday arday aan badnayn oo uu fasal u noqday. Waa fasal lagu barto cashiro kale oo muhiim ah oo xirada lagu barto. Waa sida miinada loo dhigo. Geedka hoostiisa waxaa tuuran biro kala jaad ah. Qaar waa kuuskuusan yihiin oo girgaangiro leeyihiin. Kuwo waa siman yihiin oo biro yaryar oo dhalaalaya ka taagtaagan. Waxayse ka siman yihiin waa miinooyin oo waxay u baahan yihiin in wax yar lagu dhufto ama giraan yar laga bixiyo. Kadibna wixii u dhow oo dhan ay hilibkooda shiidaan. Markii hore waan jeclaystay qaab samaysankooda. Markiise ninkiina barayay casharadooda bilaabay ayaa necbaystay waxa uu ka sheegayo. Si geesinimo iyo kalsooni leh ayuu macallinku miinada noogu sharaxayaa, isagoo intuu miino soo qabto biin yar ka bixinaya oo noo sheegaya in marka biinka laga bixiyo ay qarxiso. Anigoo indhaha taagayo ayuu haddana noogu celiyaa. Haddii meeshaas yar ee aan gacanta ku hayo aan sii daayo ayayse qarxaysaa. Isaga oo kaftanka dhigaya ayuu yidhi, ma sii daayaa aan eegno siday wax u dishee. Caloosha afka i timid. Haddana biinkii ayuu ku celiyaa, iyadoo neeftii iga gurmaysay igu soo noqotay. maalmihii hore ayay aheeday cabsidaani. Markii dambaba anigaa uga dhiiranaaday macallinkii, waana ka helay inaan si wanaagsan u kala barto. Macallinka dhiiranaantiisa ayaan iska yeelyeelaa, anigoo mararka qaarkood biinka ka bixiya kuna celiya, marmarna kor u tuurtuura oo gacanta ku qabta, anigoo isaga dhigaya inaan ku ahay macallin aysan miino haddii ay xitaa qaraxdo aysan bedeli karin. Waxaase maskaxdayda qaybteeda hoose oo aanan warkeeda dhegaysan ii sheegtaa in baashaani ay dad badan u dirtay meel aan laga soo noqonayn oo aysan war u haynin meesha ay ku taalo iyo wax ka jira oo aan ka joogo. Amaradaas maankayga hoose ka soo baxaya, keliya adeega aan iska raadinayay ayaa beeniyey. Macallinkii miinada saaxiibka la ahaa aad ayaan ugu dhowaaday ilaa uu iga dhigto gacantiisa midig. Waa ii hagar baxay oo wax kasta oo uu miino ka yaqaano si qalbi wanaagsan ayuu ii baray. Macallinkaani sidoo kale wuxuu cabbeeyaa suumanka dadka isqarxinaya ee raba aakhiro inay degdeg u aadaan. Inkastoo maalmihii hore uu aad iiga qarin jiray hawshaas iyo dadka uu ku xirayo, laakiin markii dambe way aaminay. Waana la xirxirayay mar kasta oo uu qofku xirayo suumanka isqarxinta, ilaa aan ku noqday mid aad u yaqaano. Shaqadu waa cabsi badnayd, haddana waxay u ekayd mid xiise gaara ii lahayd. Ma aqaano in waxa qarxaya markay qarxaan in shanqartooda ay tahay waxa i farax gelinayay, mise siday u samaysan tahay oo aan ka urinayay farsamo casriya inay u samaysan yihiin, mise waxay aheeday anigoo aan kala jeclayn dhimasho iyo nolol, doonayana wixii dhacayaba inay dhacaan anigoo arkaya. Goobta waxa ka socda waxay aheeday wax la yaab leh. Dadka joogaa waa meyd soconaya oo indhahooda aad ka arkayso inay mar dhow ingegayaan. Wiil yar oo maalin suun isqarxin iyo jaakad qarax ka buuxo aan ku xiraynay wuxuu ahaa mid aad u faraxsan. Indhihiisa ayaan eegaa oo wuxuu u ekaa mid u labisanayo sidii xaflad damaashaad dhallinyaro da'diisa ah isugu tegayso. Dharka ayuu dhuuqsanayaa, kabaha ayuu si hagaagsan u xirxiranayaa, timaha waa u saliidaysan yihiin, waana soo shalaystay. Aad buu isku fiirinayaa. Ma aqaano waxa uu iska fiirinayo. Anigu nolol iyo tacliin raadis ayaan ahaa, ee waxa ay tahay hawshaani ma aanan fahmin, mana garanayo siday ku dhacday ama aan ku dhex imid. Hadda waan joogaa oo kooxdan ayaan ka mid ahay. Waxaan se hubaa inaan ku faraxsanahay inaanan ahayn kan lagu xirayo qaraxa. Intaas ayaan isugu sheekaynayaa. Macallinka qaraxyada i baraa wiilka si fiican ayuu u dhuujinayaa oo shaqadiisu u qabsanayaa sida ay tahay. Gadaal iyo horay ayuu ka fiirinayaa oo mar kasta wuxuu ugu celinayaa sida ugu fudud ee uu wax u qarxin karo. Markii uu waqti ku bixiyey, markii dambe wuxuu u sheegay in hal ballan oo kale u dhiman tahay oo uu qolkaas sii tago. Waa dhaqaaqay isagoo cabbaysan oo qolkii ayuu aaday. Waxaan u gartay in fariimo kale oo isaga u gooniya loo sii sheegi doono. Fariimahaasi waxaa qayb ka ah goobta uu isku qarxin doono. Ma aqaano markuu dhinto isaga sida uu yeeli doono. Waxaase kale oo xiise lahaa in wiilkan isqarxinayo uu ahaa aroos toddobaadyadii la soo dhaafay. Tanoo ahayd wax kale oo soo jiidanaya. Anigoo ku fikiray marar badan inaan safka hore ka galo kuwa isqarxinayo si aan ula aqal galo gabar. Ha cusbaato ama kuwa hore oo hilibkooda shiidmay hawla seexatee. Markaan dadkii hore oo meesha hore u jooga duruuftooda arkay iyo xaaladda dhabta ah, waxay soo baxday in qofka xaalad kasta oo uu ku jiro uusan nolosha nici karin oo uusan quusan, raadiyana wax kasta oo uu ku heli karo farxad. Halkaas markuu isla sheekaysigaygu ila marayo ayaan anigu hiifkii iskula noqday. Aniguba anigaa soo doontay oo u soo baxsaday, ee maxaan dadkan ula yaabayaa?
nolosha meesha waa mid aad u yaab badan. ciidan ayaa baxaya, mid kale ayaa soo gelaya, col iyo duulaan, dhaawac ayaa yaalla. dadka joogaa waxay ka hadlayaan dhimasho iyo qof shalay iyo daraad la joogay oo reer aakhiro noqday. daawo ma taalo. goobtaas waxaa iiga bilaabatay nolol in badan ka duwan tii tuuladii aan ka yimid aan ku haystay. xurnimo oo aan goortii aan doono ciyaari jiray, beeraha soo falan jiray, waxaan doono diidi karay. haddase 4 aroornimo ayaa lay toosiyaa, la iina sheegaa inaan diyaargaroobo. orod iyo jimicsi aan kala joogsi lahayn ayaan subax hore galaa. markaan ka soo noqonno waxaana la siiyaa quraac yar oo aan baahida kaa goynaynin. waxaan haddana galaa cashiro ku saabsan afkaarta ururka iyo siyaasaddiisa oo naloo akhriyo saacado badan. haddana tababaro badan oo adag oo askariyeen ah ayaan galaa. sidaas ayayna kala joogsi u lahayn carbiska naloo samaynayo ilaa habeenkii 10 fiidnimo oo markaas naloo oggolaado inaan dhinacyada daalay dhulka dhigno. inta ka horrayso xurmatiid, wax amar diiddaana ma samay kartid. waxaase ka daran inaadan ka hadli karin. waxaa igu yaraaday wakhtigii oo tababarkii wuxuu ii diiday in maskaxdayda ay hesho wakhti ay ku fikirto, iskuna weydiiso waxa socda. kartidaydii waxay ku soo ururtay sidii aan ula qabsan lahaa carbiska adag ee habeen iyo maalin aan ku jiro. waxaan dareemay inaan iscilkaambinayo. waxaan ka soo cararay xurnimadeydii. haddana waxaan gacanta u galay dad aanan garanaynin waxa ay qabanayaan. weligay kuma fikirin askari ayaad noqonaysaa. waxaan u xiisay yaaqle aniga oo ku baryootamaya, allow yaa mar kale kugu celiya. welwelka iigu sii daran wuxuu iga haystaa oo aan isweydiinayaa saacad kasta, tababarkan kadib maxay tahay shaqada laguu diri doono. maskaxdayda su'aalo tiro badan oo aanan midna jawaab u haynin ayaa soo buuxdhaafiya daqiiqad kasta. ninkii culusoo ahaa ee i keenay ayaan haaraamaa. isagu lacagtiisii oo uu nagu soo gacan geliyey ayuu qaatay. xorriyaddiisa ayuu haystaa. daa'ir kalena waa ku maqan yahay. inaan dib u arki doono iyo in kale ma aqaano. waxaan go'aansaday inaan cuskado calool adeeg oo catow badan uusan waxba ii taraynin. habeenno iyo toddobaadyo badan ayaa sidaas ku dhammaaday. 6 bilood ayaan ku jiray tababar adag iyo carbin ciidan. meelaan aado oo kale ma aqaano. dantuna waxay ugu qasabtay inaan halkan joogo, waayo maalin kasta waxaa la ii akhriyaa cashiro ku saabsan inaan geli doono dagaal oo aan si fiican u barto dhammaan wixii nafteyda aan ku difaaci karo. cadowga aanan aqoonin midkuu yahayna ku dili karo. ragga tababarkana siinayo waa kuwo aad u xamaasadaysan. qaarkood way ilmeynayaan markayna barayaan dhibridka rasaasta qoryaha kala duwan. waxayna rasaasta tababarka u ridayaan sidii in cadowgii la dili lahaa uu hor taagan yahay. laakiin meesha ay ku ridayaan waa maryo yaryar oo ka laadlaada geeda la taagtaagay. xabaduhu kuma dhacan geedaha oo way la waayaan, waayo dabayl ayaa babinaysa. wayna dhaafaan. meesha ay usii dhaafaan ayaan sii eegaa oo boor ay ka kicisaa. wax cadow ahse kuma arko. ninka shiishkana baraayo wejigiisa ayaan eegaa iyo sida uu ugu qiiraysan yahay dibridka. waxaan dareemay inay cid kala jirto oo aan meesha joogin oo uu caduutinimo u qabo hilibkooda. haddii uu arkana uu karsan lahaa. annagase maxay tahay caduutinimada dadkaas maqan aanu qabi karo ayaan isweydiiyaa. dhallinyaro kale ayaan goobta isku baranay. qaar ikhtiyaarkooda iyo ogaal ayay meesha ku yimaadeen. kuwo kalena sideyda oo kale warmoog ayay ahaayeen. waa kuwo nolol raadis ah oo ka soo baxsaday quustii iyo rajala'aantii ka jirtay deegaanadii ay ku noolaayeen. waxaa lay baray sida miinooyinka dhulka loogu aaso, sida toogasho loo sameeyo, iyo sida loo khaarijiyo qof aan kaa warqabin. waxaa kale oo lay baray noocyada hubka, mid yar iyo mid weynba. ma ahan waxaan rabay inaan barto mustaqbalka, mana rabin inaan noqdo shiishyahan. haddase fartii dhaqaaqdaa xabad ayaan ku jari karaa oo lama seegayo. goor dambe ayaan ka niyad jabay hawshan. waxaan raadiyey fursado aan ku baxsan karo, mase ii suuragelin. danise halkan ayay dhigtay. hadda maxaan sameeyaa? markaan tababarkii dhammaystay waxaa laygu daray kooxda wareegta ee jugta culus oo ka kooban 41 nin oo uu wato sarkaal magaciisu yahay indhagaduud. habeen kasta waxaa laygu tixaa rasaas iyo bambooyin booshash ka buuxa si aan u fulinno howlgal ay rag ku dhintaan, kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. kii dhinta cidi isma weydiiso oo waa la beddelaa. kan dhaawacmana markuu bogsado horaa laga howlgeliyaa. waxaa layga ilaaliyey fursad yar oo aan ku fikiri karo ama isku weydiin karo in nolol degan ay jiri karto. hawsha aan ku jiro waxay u eg tahay xabsi adag oo leh ciqaab joogto ah oo aan ku shaqayno ikhtiyaar la'aan. waxaan iskula hadlay, ma waxaad gashay dabin aad si waaya aragnimo la'aan ah ugu dhacday. sidaas darteed dhowr goor ayaan ku fikiray inaan baxsado, laakiin rag kale oo meesha iiga soo horreeyey waxay ii sheegeen haddii uu qof baxsado oo uu ururku soo qabto
in isaga oo nool gaari dabada looga xirayo oo dhulka lagu jiidayo ilaa intii uu ka naf baxo. haddii ay dadka deegaanku helaanna nolosha ayaa lagugu gubayaa. marka waxay dantii igu qasabtay inaan meeshayda joogo intay il kale ii bixayso. ismase dhiibin. waxaan raadiyey inaan helo warar dheeraad ah oo ku saabsan ururkan waxa uu yahay. waxaan marba si hoose ula sheekaystaa dhallinyarta aan u dareemo inay sideyda oo kale u jahwareersan yihiin oo si ogaal la'aan ah meesha ku yimaaday. deegaanka ma kala aqaano oo intii hadda howlgallada lagu jiray ayaan dibadda u baxay. waxaan soo ogaaday in dadka deegaanku nool oo dhan col noo yihiin oo haddii aan baxsaday xitaa nolol ay ugu gubayaan. taasina waxay salka dhulka u dhigtay hiyokicii goobta iga haystay, waxayna ka dhigtay inay tahay hoygayga rasmiga ah oo aan ku sugo maalintii ay xabad madaxa iiga soo dhacdo ama aan ku naafoobo oo kadib sidii marar dhammaatay layska kay tuuro oo ciidda laygu rogo inta maryar oo labada gees xarig yar uga xiran yahay laygu duuduubo oo ciid la farfaaro laygu duugo. xerada waxaan ku saaxiibnay wiil dhallinyaro ah. isaguna wuxuu ahaa aqoon raadi sideeda oo kale ah balse la qalday oo halkan la keenay. magaciisu waa Jamaal. hooyadiis iyo aabbihii keligii ayay dhaleen. waxaan sheekaysanaa waqtiyada duhurkii oo aan fursad yar isku helno. wuxuuna ii noqday fursad nololeed oo cusub oo aan xogteyda iyo wax badan oo iga dhex guuxaya uga nafiso. Jamaal wuxuu iiga sheekeeyey qoyska uu ka yimid oo xamar degan iyo sida aysan u ogeyn ugana warhaynin inuu soo aaday halkan. Jamaal waxaan weydiiyey ururkan maxaad ka taqaanaa? ma aqaano sababta aan qof kasta oo aan arko u weydiinayo su'aashan. oo ururka waanba ka tirsanahay. habeen kastana dagaal ayaan soo galaa oo aan ku sigtaa inaan ku dhinto oo dad waxay iga galabsadeen aanan aqooninna waan soo dilaa. waxa samaankayga gubaya waa inaan fahmo waxaan u dagaalamayo, in dagaalkaani uu joogsan doono, in aan guulaysan doono oo aan ka bixi doono, iyo inay jiri karto wax ka dambeeya oo nolol ah. waxaa kale oo aan u raadinayaa xogta ururka sidii aan uga bixi lahaa qaxarka dhiigacabnimada ee aan ka shaqaynayo. Jamaal ayaa isaga oo codkiisa gaabinaya sheeko dheer ii galay. wuxuuna ku bilaabay aniga 5 sano ee la soo dhaafay waalidkay, dadka deriska ah iyo dhallinyarada xaafadda ayaan ka maqlaayay ururkan iyo waxa uu yahay. aabbahay oo hooyaday habeen uga sheekeynaya wuxuu lahaa ururkaani waa mid lagu aasaasay si laablakac ah. aqoonta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay waa ku kala gedisan tahay, waana mid aad u kooban. waxay ka midaysan yihiin dadku inay ka qabaan baqdin oo aan afaarahooda la geli karin. habdhaqankoodu meelaha qaar kala dambayn ayuu u keenay. waxayna u dhaameen kuwo wax maamulayay oo iyaga ka horreeyey. waxay qortaan dhallinyarta ay da'dooda ka yar tahay 25 jir. kadib way carbiyaan oo tababaraan. waxayna u tababaraan habab casri ah. waxay u diraan dhallinyarta goobo dagaal oo aysan nolol ahaan uga soo noqon karaynin. dadku ma aysan aqbalin xiriirkooda. waxayna u yaqaaniin dad aan iyaga la tale ahayn, waddankoodana gacanta ka bixinaya una jilba dhigaya dad ay cadow isku yihiin. odayga iyo xaaskiisa, wiilka iyo aabbihii, gabar iyo walaalkeed wax isagama sheegaan oo isma aaminaan. sida inagoo askartooda ah aynan uga hadli karin wax iyaga ku saabsan. dadka bannaanka joogaase in midba midka kale uu yahay ayuu u haystaa. ururkaani wuxuu ku soo kordhiyey qulubta Soomaalida dhacdooyin xanuun badan. kama satashan karaan wax dan u ah iyaga. taasaana siisay fursaddan ay haystaan ururkaani. Jamaal intaas ayuu iga sheegay ururkan oo ah intii uu hooyadii iyo aabbihii ka maqlay. aniga oo yaaban oo waxa tirada badan oo uu ii sheegay garan kari la qaybtoodana aan diyaar u ahayn in aan fahmo, ayaan ku yidhi adigu haddaad sidaas u og tahay maxaa ku keena meesha? Jamaal ayaa igu warceliyey xamar joogisteeda ayaa iga hor timid. meel kale oo aan aado ayaan garan waayay. jawaabtii uu i siiyey ayaa i gelisay fikir dheer. dhallinyarta Soomaaliyeed, kii magaalo weyn joogay, kii mii ku noolaa iyo kan tuulo aan adeeg lahayn ku suganba waa wada socoto. maxaa ka maqan? maxaan raadinaynaa? halkayse yaaliin waxa aan rabno? aniga oo su'aalahan isweydiinaya ayaa seerigii la yeeriyey oo naloo sheegay isu imaateen inaan urur samayno. waana boodnay oo halkii seeriga laga yeeriyey oo orodnay. sarkaal ayaa khudbad degdeg ah noo jeediyey. waxaana loo sheegay in ururka aan ka tirsanahay urur uu ka mid yahay ay diyaargaroobaan, ayna u baxayaan howlgal habeenadan kii hore ka ballaaran. habeenkii ayaa ciidankii aan ka mid ahaa waxaa lagu guray 2 gaari oo waaweyn. saaxiibkay Jamaal waa ila socdaa. goortii aan xoogaa soconay ayaa gawaaridii laga degay oo aan lugaynay. waaga markuu uu soo dhow yahay ayaan weerarnay saldhig ciidan. ciidanku way naga warhayeen inaan duulaan soo nahay. waxaan dhexda u soo galnay ciidan difaacada ku jira oo na sugayay oo aanan ka warqabin. markii ay xabaddii bilaabatay, raggii ila socday waxay u bateen dhimasho iyo dhaawac. saaxiibkay Jamaal isagoo iga dhinac dagaalamaya ayay xabaddii bawdada kaga dhacday.
dhaawac ayuu noqday. Inaan qaado ayaan isku dayay. Ninkii taliyaha ii ahaa ee indhaguduud oo cod kulul ku hadlaya ayaa yidhi ha isugu dhowaan. Xoogaa kadibna xabado kale ayaa ku dhacay Jamaal, halkii ayuuna ku ruux baxay. Dagaalkii waa sii kululaaday, ciidankeeniina waa la jebiyey. Markaan arkay saaxiibkaygii wehelkii ahaa waxa ku dhacay, waxaa i gashay cabsi aan hore iigu jirin. Waxaan isweydiiyey sida ay naftaydu aysan qiimo u lahayn, oo xiradii markii aan joognay cidna qiimo uma lahayn. Goobta dagaalkana haddii aad dhaawacanto, saaxiibada ayaa ku dhammaystirayo. Waxaan kala garan waayey cidda la dilaayo iyo kuwa wax dilaayo. dib u gurasho ayaan sameeyey, goobtiina waa ka baxay. Talo waxay noqotay inaan naftayda la cararo. Meeshii dhabarkiiga ku beegneed ayaan wejiga saaray. Ciidankeennii sideeda oo kale in yar ayaa goobtii ka baxsatay. Wixii kale ee uu ka mid yahay sarkaalkii indhaguduud waa la laayay. Waxaan ka mid noqday raggii uu nasiibku bixiyey. Markaan cabbaar ordayay oo aan ka durgay goobtii ayaan dhinacayga ku arkay nin aan ka wada tirsanayn ciidankii ila socday. Ciidankeennii aan dagaalamaynay waxaan noqonnay rafiiq. Waan lugaynay waqti badan, annaga oo sidana qoryihii, booshkii rasaasta, miinooyinka gacanta laga tuura iyo labiskii ciidan. Waagu annagoo lugaynayno ayuu noo baryey. Waa sii soconay. Duhurkii markay qoraxdu kululaatay ayaan geed hoostii ku nasannay. Markaas ayaan iswaraysanay. Hadda waxaanu nahay xor oo ciidanama haysato. Anigu guul ayaan u arkay in dagaalkii aan ku jabnay oo aan ka soo baxsaday ciidankii, inkastoo aanan garanayn meesha aan joogo iyo meesha aan u socdo. Waqtigii hore dad baxsad ah ayaan ahayn oo iswaraysi kama aanan gaarin. Laakiin markii aan geedkii hoostiisa fadhiisannay ayaan iswaraysi bilownay. Saaxiibkay wuxuu ii sheegay in Sharmaaka la yidhaahdo, anigana Samatar ayaan ugu jawaab celiyey. Duruufta aan ku jiro waxaa iiga farxad badan, xornimo aan sanad ka badan la'ahaa oo aan helay. Sidaan doono ayaan u hadlayaa oo cid kama boqo, geesahana iska eegi maayo. Intaan baxsadana cid isoo qabo mayso. Saaxiibkaygii ayaan ku weydiiyey, xaggee baad ka timid? War kama hayo saaxiibkayga baxsadkeela wax uu ka fikirayo. Waase nin aad daacad ugu ah ururkii aan ka soo jabnay. Isaga oo doonayo inuu iskay baro ayuu ugu yidhi, gaalkacyo ayaan ka imid ee aniguna tuulo gobolka Gado ka tirsan ayaan ugu soo koobay. Barasho kadib waxaan falaaqaynay wixii nagu dhacay, jabkii ciidankeena qabsaday. Anigu hawsha aan ku jiro ma ahayn rabitaankayga, meel aan uga baxana ma muuqan, balse fursad ayaa ii soo baxday oo waxaan ku faraxsanahay sidii inaan helay wax aanan weligay arag oo adduunyo ah. Kadib anigoo moodo in dawaq ama wareer ugu dhacay, waa wareer maankayga ay ku riday xabaddii iyo cabsidii badnayd, ayaan iska daldalmay. Wax saaxiibkaygii ila socday i weydiiyo iyo wax uusan i weydiinba afka ayaan furtay. Anigu tacliin iyo shaqo ayaan soo doontay, inaan dad dilo ama lay dilo sooma raadsan. Nin ayaa isoo khiyaameeyey xaggee hadda u dhaqaaqnaa. Sharmaarke isagu waa iga duwanaa. Isagoo afkayga waxa ka socdo aan kala joogsiga lahayn la yaaban ayuu ugu yidhi, miyaadan daacad u ahayn ururka, mise fulay ayaa tahay oo waad baqday? Waan hambabaray sidii qof riyo ku jira. Hadalkii aan qubayay ayaan joojiyey. Hal mar intaan noqday sidii qof hurdo ka soo baraarugay ayaan sidii aan inkiraayo wixii aan ku hadlayay oo dhan ayaan sheekadii hal mar bedelay, iyadoo cabsida isoo food saartay ay tahay inaanan weli xur ahayn oo kuwii tababarka i siinayay ee xerada igu waardiyeynayay ay ila socdaan oo aanan ka baxsan karin. Waxaan weydiiyey meesha aan joogno waa xaggee. Sharmaarke isaga oo dareemay tartarkii ahaayo ayuu wuxuu iigu jawaabay, ma aqaan dhulkan, anigu waan ku cusbahay. Xoogaa neef ah ayaan qaatay. Naxdintii aan ka qaaday hadalladiisii hore ayaa xoogaa iga degtay. Waxaan fahmay in labadeennuba aanan dhulkan kala aqoon, sidoo kale dadka deggan aanan xiriir la lahayn. Midaanna ay mar kale fursaddaydii baxsadka ahayd ay soo noolaysay. Dhibaatada labadeennan haysataa waa inaan nahay rag hubaysan oo cid kasta oo na aragtaa ee cadow noo tahay. Waayo dhulku waa deegaan ay colaadi ka taagan tahay. Qof kastana uu hubaysan yahay, si fududna waa naloo ugaarsan karaa. Haddaan col ahaan naloo dilin, waxaan dhibanayaal u nahay hubkaan sidanno oo qof kastaaba na damci karo oo intuu na dilo naga qaadan karo. Waxaan isweydiinay laba talo tii aan yeeli karo. Tan koowaad waa in qoryahan iyo dareesyadan baas aan iska tuurno oo dadkeena dhex galno. Maya, meesha aan joogno waa dhul dagaal oo waan nalaleynayaa. Haddii aan sidaas yeelno ee aan wadanno qoryaha, laakiin ciddii aan nafteena khatar gelin yaanan fiirin. Sidaas ayuu Sharmaake igula taliyey. Taladaas ayaan qaadanay. Waxaa kale oo uu soo jeediyey inaan xaruntii ku noqonno. Aniguse taas kama yeelin. Anigu afka diidmo kama muujin, laakiinse waa i fahmay inaanan raalli ka ahayn. Waxaan go'aansannay inaan geedkan ku jirno ilaa inta habeen laga gaarayo, oo markaas aan socodkeenna sii wadanno, raadinno meel aan badbaado ka gaari karno. Maqribkii ayaan socod bilownay.
in cabbaar ah markii aan soconay waxaan ku soo baxnay reer xoolo dhaqato ah oo meel degan oo nin oday ah oo waayeela aabbo u yahay. Odaygii wuxuu u arkay nimankan hubaysan ee ku soo socda waa oday cibaado badan oo ahludiin ah, balse ay wereerisay dhibaatada iyo nabad la'aanta deegaankiisa ka jirta. Waa dhiifoon yahay, cidna ma aamino. Intuu guriga ku orday ayuu qori la soo baxay si uu isku difaaco. Waan la hadalnay anagoo iska dhigayna inaan cadow ahayn. Odaygii intuu qorigii nagu soo fiiqay ayuu yidhi, inaad aniga i dishaan ayaa laydiin soo diray, ee haddii aad run sheegaysaan iska dhiga qoryaha iyo bambooyinka aad wadataan oo keligiin soo socda. Sidii ayaan yeelay, qoryihiina meel ayaan ku tiirinay. Odayga waxaa la yidhaahdaa Xaaji Ibraahim. Waa nin dhaqanka Soomaalida si fiican u yaqaano. Waa maqlay inuu deegaanka subaxii hore dagaal ka dhacay oo labadii ciidan mid ka mid ah la jebiyey. Dareen ah inaan ka mid nahay qoladii la jebiyey ayaa galay. Gogol ayuu noo dhigay, xoolana waa noo qalay. Si fiican ayuuna habeenkii noo sooray sidii uu dhaqanka Soomaalidu ahaa. Wuxuuna naga rogay oo naga baabi'iyey qaajadii baaneed ee na haysay. Markii uu suuriintii noo dhameeyey ayuu waraysi noogu yimid. Anigu weligay ma arag martisoor iiga sharaf badan kan odayga. Waxaan iskula hadlay, ma waxaanoo dhan ayaad istaahishaa in laguu sameeyo adigoo ah samatarkii baxsadka ahaa. Qoryahaynii meel naga dambaysa ayay ku tiirsan yihiin oo dad colaad dibkeeda dhigay ayaan isku ekaysiinay. Xaaji Ibraahim ayaana weydiiyey cidda aanu nahay. Annagu adeer ku warrannay, ciidanka ururkaas ayaan ka tirsannahay. Waxaana ka mid ahayn askar saaka dagaal lagu jebiyey. Naftayna ayaan la soo baxsannay. Deegaankaanna ma kala naqaano, ee halkii uu ururkeen naga xigay noo tilmaam iyo meesha aan joogno halka ay tahay, ayuu Sharmaarke odaygii ugu xog warramay. Markaan intaas maqlay waan sasay. Adeer, ururkeena mooyee yaa kale oo noo dhow. Horta intaanan dhul idin tilmaamin erey yar iga dhegaysta. Idinkaa iga aqoon badan, waddankana iga kala yaqaan. Dadka aad islaynaysaan waa dadkiinnii. Faa'iidana laguma gaaro inaad dadkaaga layso, ee horta dagaalka aad gelaysaan iska fiiriya. Ururka aad ka tirsan tihiinna dadkuma jecla, oo dilka iyo dhibaatada kale oo ay dadku u geysanayaan ayaa lagu nacay. Tan labaad, dhulkan aad joogtaan waxaa ku dhow dhowr tuulo, waxaana maamula ciidanka aad iska horjeedaan ee qoryaha iyo dharka ciidanka iska dhiga. Lugna ku gala tuulada oo kadib xamarka sii aada. Gawaari ayaa laga helaaye. Qoladiiniina dhinacaas koonfureed ayay jiraan. Dhul ballaaran oo laga kala qaxay ayaa ka sokeeya, oo si aad u gaartaan waa inaad maalmo usii lugaysaan. Niman awoodi ku jirtana ma tihiin, oo sida aad ku gaartaan ma garanayo. Sidaas ayuu Xaaji Ibraahim noogu warceliyey. Anigu hadalkii Xaaji Ibraahim aad baan u dhuuxay. Mar baan isla qoslay markuuna yidhi, idinkaa iga aqoon badan. Allow yaa u sheega aqoon iska daaye inaanan waxna qorin waxna akhrin. Qorigana la ii soo dhiibay. Ayna ku fiicnaan lahayd in lay baro dhibaatada ay leedahay in naf la gooyo. Xaaji Ibraahim markii uu cabbaar noo warramay waxaan damacsanahayna uu fahmi waayey waa naga tegey. Taladii uuna siiyey go'aankeeda annaga ayuu noo daayay in aan dharka ciidanka iyo qoryaha iska dhigno oo tuulooyinka galno, iyo inaan dhib kasta aan marno oo kooxdaynii meesha ay ku sugnayd aadno. Aniga waxaa niyadeeda ku jirtay inaan dharka iska bixiyo, tuuladana aado. Saaxiibkayse taas mid ka duwan ayuu isagana qorshaysanayaa, oo ah in uu doonayo inuu meeshii ururkeena lagu sheegay aan aadno. habeen barkii ayuu Sharmaake i toosiyey. Anigoon si hagaagsan hurdada uga kicin ayuu ugu yidhi, odaygan aanu dilno, qorigana ka qaadanno. Waa ninka soo horjeeda howlaha ururkeena. Intaan nahay oo hurdadii iga duushay ayaan dhahay, waryaa miyaad waalan tahay? Sidee baan u dilnaa oday maskiin ah oo reerkiisa iyo xoolihiisa dhaqanaya, nana martigeliyey oo xalay oo dhan noo adeegayay? Aanse ku weydiiyey maxaa dhib ah ee uu nagu sameeyey ee aan u dilnaa? Ayaannu sii raaciyey hadal kuleyl ka muuqdo. Sharmaarke oo aan garaysan jawaabta aan siiyey ayaa aamusay. Hoos ayuu u gunuunacay. Erayo aanan fahmaynin ayuu yidhi. Waxaanse u fahmay in uusan ku faraxsanayn jawaabta aan ku dhahay. Saaxiibkayga aan soo wada jabnay intii aan wada socnay isku aragti ma aanan ahayn, oo isagu wuxuu ku faraxsan yahay ka mid ahaanshaha ururka. Anigana waxaan baadigoobayaa fursaddii aan uga baxsan lahaa. Middaas ayaa naga dhex abuurtay deb iyo baasiin. Sharmaarke wuxuu ii qaatay inaanan ururka daacad u ahayn, keliyana ugu jiray ciidanka inaan basaaso. Isaga oo i cabsi gelinaya ayuu ugu yidhi, haddii aanan ku naqan ururkii oo aan ka baxsanno meel kasta oo aan tagno wayna dilayaan. Haddii ay innaga ina waayaanna ehelkeennii meesha ay joogaan ayay ugu tegayaan oo iyaga ayay dilayaan. Marka sinaba ugama bixi karayno ururka ee sidaas la soco. Ayuu hadalkaas oo u eg goodi iyo cagajuglayn iigu sheegay. Waxaan ahaa nin daalan,
oo maalintii oo dhan iyo habeenkii ka horreeyey ay dawaqyeen socodkii guurihii galab carrowgii kuleelkii xabadda iyo urtii baaruudda anigoo hadalladii sharmaarke ismoogeysiinaya ayaan jirjirka u jiifsaday cirka ayaan eegay oo ay ka muuqdaan xiddigo dayowga ama wareerka maskaxda iga haysta daraaddii qaar xiddigaha ka mid ah ayaa u muuqda inay soconayaan in cabbaar ah markii aan xiddigaha tiriyey hurdo aan raaxa lahayn oo qarow iyo buuq uu ka yeerayo ayaan galay sharmaarke intuu habeenbarkii toosay ayuu labadii qoray ee aan wadanay midna qabsaday kii kalena deegta gashaday wuxuu abbaaray halkii oday ibraahim uu jiifay uma aabba yeeline xabbad ayuu ku furay goobtiina wuxuu ku dilay xaajigiina sooriyeeyey iyo wiil yar oo uu dhalay waxaa dilkii iyo xabbadihii ku sasay carruurta intii kale iyo hooyadii qoyska oo hurda meel aan ka fogeyn goobtii ibraahim lagu dilay daawadayaal qaybtaan halkaas inoo joogto la soco qaybta xigta buuggan murugo ciddii u baahanna waxay ka heli kartaa barakaad bookshop